بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا برنامج في وعيس يويكا وتطوات كان كجهد تونه يدا مالمها الدبالدقيدة إلهي سود شيء waxa ugu sareeya oo ugu mudan in loo dabaaldego maalinta ciida carafada iyo maalinta ciida odxa ama gowraca maalmaha kale ee dadku isla meel dhigay waxa ugu mudan in loo dabaaldego maalinta hooyada. hooyadu waa jannadaadii, hooyadu waa jacayl, waa naxariis, waa anfaco iyo iidaan, waa warshad midda ugu sarreysa ee ugu qaalisan, waa dugsi iyo gabaad laga galo weerka iyo dabaylaha. isla markaa hooyo waa macallin iyo dugsi laga barto aqoonta iyo asluubta aasaasiga ah ee qof kastaa u baahan yahay, gaar ahaan marxaladda carruurnimo. yaa dafiri kara hooyadu inay tahay dugsigii ababka iyo adaabta ee ku iftiiminaya arlada iyo kaahii hiigsashada timaadada dhow. waa markhaati madoon inay hooyadu tahay macallinka ugu horeeya ee inagu gardaadiya afka iyo ereyga aynu ku hadallo. qof kasta oo anshax iyo aqoon lagu nacfiyo islamarkaana waxtarkeeda muujiya ama la yimaada abaalkiisa waxaa iska leh oo loo celinaya waalidkii gaadhidda martabadaas asaaskeeda jeexay gacanna ka geystay. bal dib u miliilic wixii hooyo kula soo martay welina heegan kuula tahay iyo doorka ay ku leedahay korriinkaaga, waxbarashadaada iyo toosintaada akhlaaqadaada. hooyo waa lama huraanka nolosha aadamaha oo dhan. kaalinta hooyadu kuma koobna inay carruur dhasho keliya. shaqadu hooyadu waa midda isku xidhaysa guriga iyo qoyska oo dhan, taas oo ah shaqada gundhiga u ah nolosha aadamaha dhammaantood. haddii aanay hooyadu shaqadaa qabanayn waxaa hubanti ah in aanu jirayn faca dambe curdinka ah ama kacaanka curdinka ah noqonayana kuwa adhaxda dheer lagaga jabo oo waxba la-aana. hooyo ehel ka weyn, aqal lagu hirtiya agab iyo maciin, asadoodan guuri waxayaal ugeyd, akhribka igu dhow, laabtaydu idil ubucdaydu taal arxan iyo kalgacal ka ildoogsi go-in. eegmada runtii een ilaashadaa hooyo waa adiga. eegmada runtii aan ilaashadaa hooyo waa adiga ee arrin khayrla iyo ardaayada la dega ardambiyo gugi edeg lagu nastiyo bare aan ogahay isha ruux u mudan astaantaydu taal sumadaydu abid ku aroorsan tahay. aflax aan ka rabo hooyo waa adiga ee ha aadaadinoo ilnugeylha mudan abaar iyo indaran meel arag xumoon eegmada u wacnayn rabbi kuma agdhigo awaara iyo boodh omasbiya la-aan. waxaad amin nacdiya aan fariir naxdini meel ay ortaal alla kuma bado ha aafoobinoo ubadkaaguyay noqon kuwa ilow kuu hayn abaal. ugu dambeyn waxaan halkan uga mahad celinayaa farsamadii G Studio iyo Maxamed Gene. waa inoo toddobaadka dambe iyo wacays iyo wiiga.